السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لياشا الداون دونا براها أنا ريجبوتي براها بلشدة إيجا داون دونو وسلامتي نورتا برا أصحاب تايديان سومدين يا ورباني هيا مافياني مدي الروفياني مدي باكو بلا تريزو سوسيوغا فيديو بان سو شير غريي marka videoga isagoo qofka ugu horeeyaan waan sharfaa waan hadlaa because waan iska dhigan meesha assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaat video baan soo share gareeyay oo Faysal Cali Waraabe oo ka hadlaya doorasho ayaan soo share gareeyay waxaan maqlay Faysal Cali Waraabe qofkii daawan doona wuxuu ka hadlayay inuu ay qabanayaan maxaa waa meeshan leeyahay Somaliland ay qabanayaan maxaa Isaaqland baan yiraahdo Somaliland ma aha wax kale waa Isaaqland astaghfirullah yani Soomaaliya isku qaadin Isaaqland waxay isku waafaqeen inay qabanayaan wax la yiraahdo maxaa dacwadan yar meeshan yar isku haystaan waxba ma aqaan waa kartel beexi wuxuu ogolaaday inuu qabsado doorasho isaaqay dhexdeedii okay maxaa dhacay horta reerkii Nuux Ismaaciil anigu reerka waan sitaa reerkii Nuux Ismaaciil waxay sameeyeen sirbi sameeyeen wax iskula jiraan aniga sheegay maanta mamaasankii wuu kala jabay reer Jabuuti dhag fara reer Jabuutiyow dhag fara maanta war baan siinaya wallahi oo bila investigation-gana inamadii movement de patriote waxana way soo dhigi doonaan laakiin anigu Soomaali aad baan uga dhaadhacsanahay si fiican baan u aqaanaa Nuux Ismaaciil iyo filmadii qoraan iyo xagee ka qoraan iyo xagee ka hadlaan wadarkiiseen odayga leeyahay maxaa la yiraahdaa odayga Faysal Cali Waraabe mamaasan uu kala jabay hadaba mamaasan qaar waxay wataan Nuux Ismaaciil ma haday waniga nilay waxa watana oo runa oo wata ware waa mamaasankii kala socsocan ma kala aqaanay laakiin ragga tun kale wata waa ninkii la oran jiray finance haysan jiray in badan Jabuuti ee la oran jiray Yaasiin Cilmi Buux iyo group ku xidhan yahay iyo malaha ina kale leeyahay wuxuu haystaa heesaha loo sameeyay daan waxa ma kala gurgure loo sameeyay heesaha ee la yiraahdo Xumed Giire soo dhawow huuno heesaha loo sameeyay ayaamihii roobabku da'een kamaradaha isdaba qaad Yaasiin Cilmi Buux bondka iyo ina kan leeyahay wuxuu fadhiyaa Belgium tuuga ha ex agentgi SDS taha dadka leynayay war groupkaasi waxay iswataan Nuux Ismaaciil warba maanta haya wallahi oo bilaa xaga telefoonka waan dhigi doonaa hadalkayga waan dhigay waxaan dandasaday waxa la sameeyay hadaba groupkaasi waan garanayaa ma hadaya waniga ku yiri mariyihii qaateen marka farti qoraya ma ogahay waniga niga yiraanigu odaygii Muuse Biixi waxaan u jeedaa odaygii Faysal wuxuu u hadla waa porte-parole-ka u hadla Nuux Ismaaciil waxay samaysteen group anani sheegaya group bay samaysteen investigation gana wallahi oo billahi oo talay gala waraa miskiin oo shaaqoy hadda xagga afka ay ku soo qortid shate blog tout suite islaantii ruufiyan baa tahay waan ku garanayaa waxaad soo dhigatay islaantii ruufiyaanada ahayd ee leeyahay adna ayaa 18 waa dilaayad weyn waan ku fahmay jabete bloquer tout suite haddaad xagga ayro fadhiiso bila adab baatay dadka kula hadlaya debeled Jabuuti min beled Hargeysa shan baan ku yiri xagga fadhiiso kolka haddaad tahay Jibril Abukar amba iskaga dhac meesha waa ku daynay hadal waxaan yiri walaalayaalow investigareeya Faysal Cali Waraabe hadla wuxuu yiri fartu ku fiiqay video baan soo dhigay waa ka hadlay anigu wuxuu yiri reer yaro محمود سليمان إمك جبهات بيسميين
jabhadii waxay soo noolaysiiyeen USB wax u egeeg ay sameeyeen ay doonayaan inay kaga hortagaan dowladda Soomaaliya askarta ku soo socota deeleen Axmed Madow uu isdhiibay kolka waan garanayaa anu reer Nuux Ismaaciil baan iga yaqaanaa mariyihii ku sitaan xagga mariyihii ku sitaan laakiin sheekadan waa sheeka in laagoosa ay wada xiriirsan xaggii bay ku samaysteen waa la kala baxay haddaba Djibouti waa run waa la kala baxay eta parallelkii mamaasankii way kala baxeen iyo eta parallelkii waxay doonayaan qaari iyo qaraabtuna waxa weeye waa Cabdilla Saad يا سلانت فودو يا عبد الرحمن كده شيغتا يا ريس مطر ولا سيكلا بحي ما انت اوديغي انا بيحي مدخا وخيدد كغا فرمي الى فو maxaa adigu u soo qadatay huuno islaantan aniga anna waa maafiya ee shitamuun okay dawladda Djibouti baa wada difaacina marka meesha waa la kala baxay odaygii waxay cadaatay odayga Ismaaciil Cumar waa Robocop wallahi billahi tallahi waa Robocop waxa isku dul haysta mamaasan bay isku dul haysta waxa isku dul haysta mamaasankii la socod jiray Nuux Ismaaciil iyo mamaasanka imika la socda maxaa la yiraahdaa qaraabtuna waxa weeye waa ninka oo ina oo Saciid meesha waa la isku ag jiidanaya Djibouti dhexdeedii wallahi oo billahi tallahi meesha dawlad ma jirto investigation gala wuxuu yiri odayga anigu waxaan dhadhasadaa hadalada waxa iga anigu aan ku dhex jiraa meesha Hargeysa ayaan leeyahay anigu reeraha yagii ayaan ka riixanina marka way waasheen Nuux Ismaaciil way waasheen visage doonaan bay qaataan dadka masaakiintoodana iyaga intay teeleyada bilcaan u galaan bi doonayaan inay kaga kicsadaan kaga saaraan sid ugu kiciyaan ayay ku kicinayaan waa inay ku kiciyaan dadkii ku kicin jireen sida ugu kicinayaan waa inay masaakiintoodii la weeraraa oo videoyaal iyo teelayaal inta u qaataan ay yiraahdaan waana lalaay kolka maxaa ayaa kacaya waa ciidagalo maanta noqdo qarxajis baa la diidaya wala kala jabinaya iyagana kolka anu xagga waxaan u soo noqonayaa Djibouti haddaba markaan xagga Somaliland ka imaado Djibouti man haddana dalad u soo oranaya mamaasan uu kala jabay mamaasanki isgaranayeen Nuux Ismaaciil oo la sito waa inamada waaniga ku leeyahay kow waa ina ka Yaasiin Cilmi Buux waa ina ka kale la yiraahdo haysta Yaasiin Cawleed haysta maxaa la yiraahdaa meelaha masaxaada heesanay intu videos daba qaaday wax dhuray iska dhigay waa film waa fake markii roobabku da'ayeen waxa ina kan dalkhan fadhiyo ee tuuga ee la leeyahay maxaa la yiraahdaa comment il s'appelle le gars SDS taha una isoo sheega commandant maxaa la oran jiray vola tuug walina ku toqtiqaya dadka hadda xagan kugu xiri weyn waad arki doontaa iftin iyaga iswada wata intaas waa group salaam calaykum haba foosiyay soo dhawo maanta war baan hayaa Faisal Cali waraabe uu caday wuxuu waa la qabanayaa waxay ka dhigantay Djibouti la kala baxay laba eta parallelkii meel bay marka reerkii ma jeerteena waa kuwa way jabhadeen lagu soo socday arkeen jabhad bay samaysteen USB u eeg ma aha USB mid lama bixini laakiin way kala baxeenoo bilcaan bay isku kala fureen waxay doonayaan inay meesha khalkhaliyaan ay kaga tuuraan dawladda adag laakiin xagga waxaan uga sheegayaa jaahiliinta Soomaaliyeed adduunyadan uma soo socoto inay qarxiso maxaa la yiraahdaa Ethiopia inay intaasoo milyan qaraxdo uma soo socoto laakiin dadkii waxaad moodaysaan Soomaaliyeed inay way daaleen qaxbi ka daaleen xabad bay kuwii dhexdoodii ka daaleen wixii ka daaleen kuwii kalena qurbihii waa lagu daalay nolol ina la helo waxay dadkii Soomaaliyeed ee qolqoljoog iyo qurbajoog baa ka go'an kolka waxaad ka qaadi kartaan ma jirto anu xagga waxa ka leeyahay wallahi voodoo aan la hadlayaa wallahi ma la hadlayaa doqon
يدقن بعض أوديك هرت مي أوديك هدي تقول هذا الملأ أنا والله ما أنت رنت هالشيء waxa sheegayaba waa odaygii maxaa la in cali waraababa si allees u hadlaya wallahi una dhagaysta waa soo dhigay allees buu hadlaya waayo meeshin bay dhigeen meeshan isku xidhan odaygii xitaa odaygii laga dambeynayay ee la oran jiray waa oday fiican soo dhawaa xad maanta waa kulayl odaygii laga dambeynayay ee la oran jiray waa oday fiican habar gidir aan waxaan gartayba inaka dahar cali soo siduu aytami jiray هذاكي حتى بهذر جديرها لمودة إنه فينا إلا لها محل هذا يي عبد القاسم صلاح حسن إسكفر يجيب هادان بروسيك وقفر وين وذاك دونتا وحلو يري وانتو قصة قريبا ودقال قبيلة دو حلقة ودابي وريتشو بلان وحو ديدان حدود ومدى الصومالية لغو صحرايو xuduudahooga inamada Soomaali ma waxa waa gabi min raas casir raskaboni inamada Soomaaliyeed ku wada jiraan 30 jiradii in dhulkooga ootaan bi doonayaan in dadka tashadaan bi doonayaan dalkooga wuxuu ku soo qoray waa dagaal qabiileed waa qabiileed Soomaha ha wani fahanay laakiin Soomaalidii maanta way daashay iyagii baa raba فودويي مافياي ولا فهمي صومالي بمانتا ويداش صدقي سنودو ديغو كدادنس is enough for you is enough ما سنو أنا وين أوجا نوح إسماعيل بانقرنا يا سفي عن يجا نوح حافظ وهبرياش شيء فيلك القرآن بوين فهمه فيلك الصدا القرآن وفهمه واني صور دغه والله dib u wada eega walaalayaal baashkayga waa soo dhigay sidoo alleeska u yahay odayga xuna daamaha madowle iyagu u sita boorsada u cidka u sheeganayana waan galeena balo soo wada balo waa kuwa reerkin waa saaxiibo waa wada saaxiibo xan iyaguna way qaar bay yiraahdeen jabhadeeya marka inay dawlad Soomaaliyeed ma rabaan marka xagaan waxa ka sheegaya vooduyey waan kugu kacaynaa wallahi waa soo galaynaa umada reer Djibouti xaafadaha yagii xaafadaad ku dhalatay iyo xaafada odayga kale uu ku imiday nabadda uu ku imiday dadkii u dhashay daladka soo wada galaya waa ka kicinayna darbaaxan kula dhaci doonaana askartuna waa walaalada masaakiinta eed ku adibteen gaajo anako 900,000 gaarin manu qaadi karayno hadduu aqligu shaqaynayo waxaan la hadlayaa aqoonyaaniinta mooday inay la talinayaan taliska kartelka geelow ma qaadi karayno 900,000 ina 10 milyan isku soo sii dayno adeer aqligu ha shaqeeyo wallahi hadduu aqlinigu hadhay ana waxaan la hadlayaa wallahi dadka wali aqligu ku sii hadhay كم الدين كرن ديجة دتك ولا لدينا هالجوجيو ديجة دتك ولا لهنا عندينو رير Djibouti وحلا والله دتك بوقت باقول يبلايو أنا جو أضيع علي حسن محمد حسن هاكو عندنا والله وبالله أطلعي دتك نجد الشيء بهجباء إسلام هو جن فتالين كوضع دكتي وضع أركي أباها يوح عقد أباها معاي كرادة بتدبات تنشيرو أباها يلدقي كم معاي كرين تعي والله مصر لكن إل بيجي يرسينس وذاك دونتا وذاك حاجات قشي وذاك فرتا قرطان حاجة باكوسو قلي وانكو خورية وان دقدقي وان الجو أنفستيجرين أدر والتين وما صنو ماشى أنو هراني ويدي أنا محل هذا ريرك نوح إسماعيل والله دوقي نقص طورين والله وبالله والله دوقي نقص طورين حداد ما أنت أضحك حاجة السان قلبات هذا القلبات وحبا معها وبري وحي كده صوتها هي صومالي لان ماشي اللي الساق لان وبري برينا اسكو شقة متهيدين اسكو هذا اسكو لانجوش متهيدين اسنسو قادان وامحي أغلق كيني كرا inaad dadka shishay inaad soo qabsatid ood ku soo qabsatid magaalo yar oo kulul oo 23000 km² oo kulul oo 900,000 habitants inaad ku soo rartid ma ana ka qaadi karayna ana kibata xaafadihiiba huuna
hooyadii 12 dhashay 10 dhashay waad ogtihiidiine ayaa inankeegii markuu hormoonku ku kaco inankeegii haye maqsinka agtiisii buu aabihii ku agdhalaya war waxaana wallahi xishood weeyaan xishood maror dilaac markaasuu xaggan ismaaciil cumar nin leeyahay facebookii wuxuu noqday demos baad ka qaado waad ka seexan kari weydeen runtaad ayaa feejigneedaysaan inay naga hor timaado adeerayaal runtaad diidaysaan inay naga hor timaado wallaahi oo bilaahi oo tallaahi intaan nii dul qaadanay soomaali mii dul qaadateeni cafar iyo ciise iyo isaaq iyo carab samaroon carab suudaan geebi meetiiskeeni wallaahi inta soo dhaqaaqno baan ku soo dhaqaaqaynaa meel kale kuma soo dhaqaaqayno anigu xaaraan jan baan yidhaahdaa xaaraan muus wallaahi yaan ku soo dhaqaaqaynaa waa iska kiindhabaynaa waxay noqotay ninka yaree xun ee doqonka ee la leeyahay gaaqda biblikaga hablahayagiibaa adeer wuxuu inan baan soo dhigay waana garanaya anigu waa lay sheegay adeer caruurtayadii baad badeen dhilooyin iyagiyo markaa waxaad u badeena abaar markaad ku rideen inad yarad wixii meel yaray wax iska soo dhaldhalaaso dee istuuraysaa yes hooyadii baa aamusaysaa war wax xaggana gaadhsiisan umad lama gaadhsiin war xaggana gaadhsiisan rien pour le peuple waa meel xun baadna gaadhsiiseen iska ma soconaysaane anigu waxaan idhaahdaa ma yidhaahdaba soo dareera war kale qoryahan qaadano waxaan iskaga dareerna wallaahi ilma ay qabataan jabuuti waan caynaa ka warramo because uno maror dilaac weeyaan maror dilaac war qoryaha kaale ha soo doonanaya iska ridna waxaan waa ciyaalo suuq adeerayaal ninkii moodaya dowladow adeer dowlad maaha waxani waa dalshaapoye dalshaapona xabad baad afka lagaga ridaa afka ayaa laga ridaa haddaad moodaysaan dalshaapo baana haysata haddaad moodaysaan inaan afka ga ridanayo inaan fadhiyayno adeer maahe kaale han ku wada dhaadhacno anaalay sooqaytoaan goosana waxaa la dilana caruurteena u hadhaya wallaahi maxaa looga cabsananaya waxan war inama badanoo walaaladayna waxaa xaggaa buuxaa dafa wallaahi jabuuti dhexdeeda waxaan kala hadlanba maaha والله ما رد العسنهاي يعني وحي وضان نو أنا أقول عيال السوق بني وضاركا بوسيدني غنداغنا وينو ديار والله وينو ديار ولا الكي هدو يهينا أنا صحكا سوق الصني والله سو جوجيني ولا ليال ريجبوتيو هذا هام بيشو odaygi wuu cadaystay hadalka waa loo soo dhiibtay waxa la yiri kaalay wax naga qaada waka hadalku cadi xaqiisa waa in loogu tagaa maxaa malaa ina xan ka hadalna maahe waa ina malakeena waa ina tigidha goosana waa ina walaalaheena lacagta aan u urnayo aan u shaqeynaa double service aan u qabanaa on waxa shanka iyo waxa aan dagaal lahaa anu dagaal baan ku baaqaa mar waliba because anu waa dal shapo baan arkaa xaqana haraaga SNM ee dadkii dhabarka ka tooganay inta dileen SNMT iska dhigaysay saaq inta iska dileen ay dhabarka iskaga togteen maahe intay kale kolneeleesh dhiga cabaha dhigii intii umadoodii bay la qilqayaan run been waa huuhaa iyaga intii mariyeen maahe intay kalena way dilaalayaan adeer way dilaalayaan way la iswada daldalayaa hargeysa waxa ma yaalaan hadbixin xayndaabka ka bixin qofkiiba isdaldalaya ciil caawadeeda maxaa haystaan laa ilaaha illa allah maxamed rasuulillah war waxaan yidhi anigu wallaahi reer Djibouti walaalayaal wallaahi qurbar joog iyo qolqol joog isdiyaarno wallaahi isdiyaarno meeshan hanbahan ku noolaano sida ani ma aha marka noolaan leeyahay waxa ka hadlayna waa future hadaan u dhinto wallaahi waan dhintay anu ciyaalkayga buugna waan horaan aan u sheegay adeer waan ima doonaan anigu eetay haddaad gaadhi igu odagay Ismaaciil Cumar uu cabsooday adeer aniga ongalka aad ka marisay speer baa ima doono oo caruurtayda autopsy wax iga samaysanaysa waan iman haddii iga laandheereysnaato
vaudou anu landera inika ibaray ma aqoon anu jibusiyaan baan aqaanay laakiin inikana baray inika qabyaalad xunna baray uskagna baray et vous allez payer cher sur ça yes ya ka cabsoonaya marka odayga waxa la hadlayaa maxaa la yiraahdaa Faysal Cali Waraabo waxba ha buubuunin habaryaasha waa aqaana meeshii filimkii ka qorayaan amba habaryaal biyo ruta u sheegay ree gadidi ree Axmed madaxii ku qaateen waayo wixii barteen boqortooyo 100 sanadood ay dhex fadhiyeen iyo in ka badan wallahi abay waxay farkastay samaynayaan si ay u burburiyaan dawladda Soomaaliya iyagana burburiyay kolkii hore markaa mamaasan uu kala baxay ciisow reer Jabuutiyo mamaasan isku jira ma jiro waa des groupes wallahi waa des groupes plus un groupe warune un groupe oo inaka islaantu dhashay vaudou oo wato de aqaba saddex groupe isku hirdiyeysay waa ka markaan waxa mar labaad iyo mar saddexaad caruurtaydan hadda seexisanaya waxa leeyahay reer Jabuutiyo ka kaca anu ka kaca kale maahe anu qoryaha soo doonta nin kastiba qoriga iyo wuxuu isku difaacay wallahi aqalkiisa soo dhigto nabigi ilaahay wallahi oo billahi oo tallahi qoriga isku difaacay walaal aqalkaaga iska soo dhigdo anu runta ku sheegaya inaad dahabkaaga laga guran hooyada anu wali waxaan la hadlayaa maamada kaarteega ku nool hooyo walaal wallahi maanta journée des femmes ayaan la hadlayaa waxaan ka leeyahay qori iska soo iibso haddaad inaan dhashay inaan aadad laba qori soo iibso aqalkaaga ilaasho difaaco way safini meesha maxamed jiraan safini una soo dhawow Siman Safi Ibrahim soo dhawowna maxamed afada soo dhawaada waxaan yiri una xuduudaha maaha war self defense meesho waa la kala baxsayay Hargeysa laba double G baa la ciyaaraya marka kartiyadan ii ogahay odaygii Muuse Biixi wuxuu qabanaya lagu qasbay inuu qabto uu ka baxo Djibouti isaga waxa la tuuray maxaa la yiraahdaa ninkii ina uu Saciid kolka waa laba group plus inakii kale adeerka loo haaye ina bandaac saddex group weeyaan iska ilaaliya reerkii maanta indhaha ku haya majeerteenya jabhad bay sameeyeen jabhadana waa la isla ogyahay xaggan waxa laga ciyaarayaa ina dadka reer Soomaaliland masaakiinta intay dhimatay maaha inta nool lacagaha lagaga dul gurto waad arki doontaa Faysal Cali Waraabo hadda ka qaytiqeen waayo wallahi oo billahi oo tallahi waxaad ku hadlaysid oo dhan ti enregistré hadda aan ka soo duuduweyno waad arki doontaa nationalité-ga Finland dhig yacba tahay faraha dhig ku sidatay waad arki doontaa warreer Djibouti intaasaan iga baxay waxaan ku soo bireeyna waxa weeye meeshan waa 3 étapes isku daba eriyanaysa Djibouti way dhamaatay meeshan oday kama taliyo 3 étapes ka taliye reer Djibouti waxaan iimalaa qoryaha soo iibsada anigu saasaan yiraahdaa wallahi qoryaha soo iibsada ninkastiba self defense asamaysto xaafadiisa iyo wallahi inta yar u galo meeshani waa cartel wala kala baxay marka wasalaam calaykum no ma aha waa sida wallahi waa sida tahay odayga u fiirsoona waan soo dhigaan waxba ogahay wax badan baa la socdaa ogahay waxaan yiri una reer Djibouti walaalayaal waan jecelahay waxaan leeyahay khalaas way dhamaatay sheekadu ina fadhiyo hadal iyo ma jirto waxaan leeyahay anigu nikasti oo reer Djibouti oo qoryo 2 3 wallahi aqalkaaga soo dhigo is défendre self défense wayna la galay hadii on soo wada galnaa
on wallahi meeshan aan ilaa ya meeshan aan u xaraam musbaa yiraahdaa xaraantan aabeed cunte soo afjarna haddii kale aaba sheekadu way dhaaftay survivor bay joogtaa haddaa survie doonaysid adeer ça commence de toi même haddaa doonaysid reerkaaga inaad difaacatid aad isdifaac self defense samayso qoryo soo iibso wallaahi soo talo xadalka ka soo talo meesha dowladda Soomaaliland war waxa la arkay waxa waa pfa war waa shiftadii SNM baa fadhida haddaad maqlaysaan kolkaas soo talaabo qoryaha soo iibsada soo talaabo Ethiopia ka soo talaabo soo iibsada soo wallaahi aqaladiina ku haysta bac ku siiya qofkaad fahmi weydaan self defense intaas walaalayaal niga baxay waan jeclahay wallahi billahi tallahi da waxa weyn ina game noogu ciyaaro après 43 années ruwaayada no voodoo odayga Robocop ay wadatiin mamaasano walaalayaal ininka markaa mamaasan leeyahay de magacii mamaasan baad sidataan raga waxa wada waa ininka anigu maaha shacbi waa ininka wayniga dhamaatay Nuux Ismaaciil fartu qoraba fartaan ka gelinayna runtaan xagaa soo dhigaynaa Nuux Ismaaciil ininka iswata qareebna ininka iswata de xagaa iskula dambaysan adar waan eegi doona amisonna anu run bani sheegay amisonna dhulkeena weyman doonta wallahi oo billahi oo tallaahi hade waad waalantiin malaha amison baa dhulka imanaysa waa isaaq waan ku kala baxaynaa waan dhignayna anako ilaayo haddaad waalantihidiina moodaysiin waan dhignay ilaa maayo meesha ay ku waasheen leeyihiin maxaa la yidhahdaa Ingiriis tahay ayaan Ingiriis baa na kala guri waad arki doontaana waad arki xagii ku dambeeya Nuux Ismaaciil mamaasano Ingiriis baad ayaad ka maqbaqashay waa arki waan dhiganay dacwadahii meesha waxaan nidhi sida ha loo eego meesha maaha wax xaqa waxa la isku haysto xaq ma hadee arka yaana lagu tusin huno Jibraa Bakar yaro meelaha jafle runtiiman Jibraa Bakar ogiin runtii waxay iska jecelin xagan dhooq adu dawlad xaga kaaga dhow baa jirta ee dhooq ay ciyaaraya jeega la chefiana banan la chochiana banan iyaga meeshoodii iyo meelahayga wana loo dhisay iyaguna lacagtii yareed wixii bay helayaan marka waa la chefiana banan ciyaar la chochiana banan bay wadaan Jibraa Bakar awaaqana xaga ka hadlayaan ka ciyaarayaan baan qirnaya adeer kolka meesha waxa imanaysa amison baa imanaysa na kala guraysa weliga isaaq iyo waxan aabood waxan iyo qurunkan waxa wata waa habriyoonisna maanta bayl bidaacayaan run been meeshan amison baa imanaysa oo lagu kala yaacaya amba hadla ahadlina mamaasan baan la hadlaya rag ama mamaasan ay tunka ee maanta de jaahil wada dowladdan Jabuuti odaygu waxba ma wado sidoo hadlaya laga garanaya adeer kulku hurdada ka soo kaco ilmaha yar baa garanaya hurdada kolkuu ka soo kacay kafeer malaha soo cabsiisaan bad dariiqa soo marisaan oo dadka videoga naga duuba umadahana daawad kan uu kala hadlaya maxaa qiso soo ka qaylsiye runta ka qaylsiisay kaalaya wadi joogna ani kanayna bada war caruurtu waxa kuma hadasho wax kuma hadlaa wax ku hadla uu gartamay garbu u soo fadhiistay wallahi xitaa eega visageka odayga prime ministerka eega uu cadaysna cada ka muuqatay xitaa wuxuu hatuundi eega wallahi ayaad ka dhaadhicinaysaan been war ayaad ka dhaadhicinaysaan comportement qofka la akhrisanaya xiisa siduu joogo siduu eegay una soo dhawa barqad cali cuduno kana doonaya in anaka ciyaal naga dhigdhigaan adeer meesha fadhiiso voodoo waa dirgalxaysay waxaad gashay Hargeysa waxa iska haysta aayir si qabo u haysta adeer runta ku sheegay caawana badantiin Hargeysa reer Nuux Ismaaciil xoog kumay qabsan naam waxay ku qabsadeen sirsir yar ay ku qabsadeen salaamu calaykum no sirsir yar bay ku qabsadeen waxay yiraahdeen xaydaabkaanu ka bixin ha daayir bay ku haysteen waxaad moodaysaa inay xoog ku haysteen imikadan odayga Muuse Biixi wuxuu niga yiraahdaa
هو صباحي مصافر يستا هذيك حنا abtiya saana wuxuu doondoonaa wuxuu dhacaan iyagii walaalahoodba ingiriiska ka yimid laakiin xalfan doonaan ilaahay baa garan marka double jeeyadan aad ciyaaraysaan iyo odaygan qobokoobka anaka noo soo qaadeen oo reer Djibouti ku waalaysaan inikini taala dawaita parallel waxaan la hadlayaa ona Siman Saafiyay waita parallel Djibouti ma hadal bileed on est étouffé 12 Siman Safi Ibrahim Boulale 10 à peu près 10 millions et quelques ayaa la soo burburiyo na dul jooga Djibouti maxaan ka hadlaa waana la caburiyo maxaan ka hadlaa ayaan ka hadlaa anuna ma badaawado wallahi teelayga Djibouti ma daawado ina cabursan ha arkay adeer ee jooji hoona meel baan ka soo duduminayaa meel baan ka riixayaa ka xaganuna waan iga salaamay waan jecelahay intaad igu daawateenay meesha saddex ba isku eriyanaysa waan igu soo celiyay dernière fois wallahi waan igu soo celinaya waxa weyn qaari salaam calaykum nogiya burhano qaari waxa weeyaan waa nuux ismaaciil hareyn anu waan garanayaa hadda waan sheegi jiray layfafkay mariha madaxii mariha ku sitaan shir kale soo dhigeen waxay doonayaan inay iyaga iyo reer maxamuud Salmaan la yiri oo maxaa la yiraahdaa ma jarteenkaya ayaa isbixiyay ina dawladda adigu lagu soo jijiyo laakiin waa jaahilnimo dawladdan adduunka wadata waxa wata in maxaa la 120 milyan ay burburinay 900,000 habitants waayaan marka jaahilnimadii Soomaaliyeed bay doonayaan inay utiliser laakiin Soomaali waxa way ka sareysaa waxaasi ku soconayso waxaan la hadlayaa anagu ragan la socda ee mamaasan ee goonida iyo voodoo wallahi waxaan iga mashaqeynayso rutani sheegayaan wallahi waxaan iga mashaqeynayso oo billahi iga mashaqeynaysa waan isarki doonaa scenario-gaana hada ras aserna la soo xiri way zeyla waad arki marka xagaad ku hadashid kolkaaban aniga iyo si fiican aan ugu soo dhaadhici doonaa Djibouti iyo odaga maxaa la yiraahdaa Maxamed Xasan tuuga ee anaka madaxa naga qaraacay iyo maxaa la odaga xal xawareena barnay marka baan xisaabtami doonaa wassalaamu calaykum la barakaat ras aser jag marka laga soo siiyo ya adigu waa daraaro dhow wallahi waa dhawaano baan xisaabtami doonaa jaahilnimada inta leegna joojiya jaw baan iga leeyahay mar baa samayseen kaaraad xoqateen baa doonaysan inaad dib u soo xoqataa Soomaaliya way ka dheregtay dagaal way ka dheregtay qurun way ka dheregtay waxay aragtay Soomaaliyana runta ku sheegayay Soomaaliyaba anigu Soomaalida kale waa isku qaadqaaday Somaliland isaaqa walibana ila laanku way saaqay anu isaaq baan u aqaanay waxay arkeen nin Afrikaana oo sanku inta leeyahay oo tapis rouge loo jiidayo oo leeyri waa gaal walibana oo tapis rouge loo jiidayo markaas ka yidhaahdeen salaamatahay waana dhaaf biidhaan marka noloshoodii samaysteen waa ka wallahi oo billahi wallahi baan ku dhaartay oo billahi oo tallaahi niima suura galayso anaka joogna buug baa la wada haystaa waxba odayaaleero masaakiino maxaa la yidhahdaaye tvl fooyay wada sameeyeen maxaa la yidhahdaaye goortigi maaha adeer qoryaal isla fadhiya xaafadaha nin isaaq baana la yidhaahdaa adeer nin territoirkiisa uguma soo dul doonto iguma soo haweysane ina ciida galaa wallahi ku soo haweysanen arabsiya aaga u garanaya marka intaasaan iga baxay waxa lee voodoo khalaas wallahi way kaaga dhamaatay waa farxadkaagi u dambeysay waan isarki doonaa Djiboutina waan soo wada gelaynaa waad arki wallahi oo billahi oo tallahi baan ku yidhi wallahi baan ku yidhi way kaaga dhamaatay filinkaad xoqanaysid filinku soconaya maahe wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waan wada jecelahay gabi reer Djibouti waa viva waa gul anaka noo soo urtay waa caraf filimaan la qaatay maxay tiri ونانا waxa kama helo anigu qofka waad bugtiin anigu waa kuwa dadkii bukayba igu soo turturnay je te bloque tout de suite anigu Soomaali ma qorey tu écris en français je te bloque tout de suite skino dadkii xanuunsanay reer Samataryo
jibro abakorkii doonaya inay dee noloshan jabuuti ay soo gurgurtaan iyo waxba xaggan aniga af soomaali yaroo ruwaayada igu soo qorqoraya adar isaaq shaarkooya waan ku arkayaa in yar waxaa tahay leersisite oo islaantii ruufyaanka ahayd bad ayaad meelaha soo dhigdhigatay waan iska kaa arkayaaye iska hadaloo in yaro fiican baa tahay uuno isaaq weligii iskumuu jirin weligii ismaan waqoon waxaad kalkiilaysaa in yar baa tahay malahe waxaad kalkiilaysaa distanska hargeysa un samee min burco inta kilomitr ariga iyaguna isma soo gaadhaan kolka aniga isaaq iyo sanka iga mermerin isaaq snm buu ahaa snmna iyagaa watay dadkii ka diidana waa lagu laayay shirkii maxaa la idhahdaaye gandaha ilaa gandihii bateedka anu ma odhan kara ugaaskii laakiin waan shakisanahay anugu laakiin odayaashii tunka waaweynaaye meelaha ka talinayaan garanaya adeera miskiin baa tahay ina yar baa tahay iska joogso haddaba waxyaabo badan baan anigu afkayga weliba ka xeeriyahuno markauna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan wada salaamay waan jecelahay investigareeya hadalkayga waan dhigi doonaa investigationgana qaata waa kaahuna waan wada salaamay fuaad saalimhuna soo dhawow waan wada salaamay huna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaasaan iga baxay no journée des femmes kii odayga yaraa uuna diiriyey odayga yaraa laleeyahay faysal cali waraabe waxa weeyaan afka nuux ismaaciil buu ku hadlaa odaygaasi never isma qariyaba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu